eedeemo culus ayaa loo jeedinayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud mucaaradkana sidaas ayaa loogu jeedinayaa shacabkii Soomaaliyeedna waxay garala yihiin halka ay aadaan iyo cidda eedan dusha ay kaga saaraan shalay imaaraadka waxa uu u yaqaanay saaxiibka ugu wanaagsan ee Soomaaliya ay leedahay laakiin maanta waxa uu yaqaanaa cadow taageeraya mucaaradka maxaa saaxiibkii shalay ka dhigay cadowga maanta jamhuuriyadda imaaraadka carabta dal aan saaxiibanahay waay shalay maanaan saaxiibin taariikh fac ayaan saaxiib ahayn weligeen cadaawadna dhexmarta ma jirto maanta aan joogno marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waliba ku darso madaxweyne xasan sheekh maxamuud amniga caasimadda ciidankii xaqiijiyay waxa uu leeyahay waxa naga taageeray imaaraadka iyadoo aan wax shuruudan ugu xirin ciidanka alla amaanaya maanta oo dhan ee magaalada Muqdisho jooga ayadaa noo dhistay noona qalabaysay wax shuruudoo ku xirnay iyo waxaan uga bedelanay oo inaga qaateen ama ay naga sugayaanna ma jirto tii ugu darneedna waa tan waxaan rabaa marka dadka cadowga Soomaaliya ah waay dadka ka shaqeeya Soomaaliya iyo saaxiibada inay isqabadsiiyaan oo u kala xumo sheegaan waxaan rabaa dadka Soomaaliya inaan u sheego dawladda imaaraadka carabta saaxiibada ugu waaweyn oo Soomaaliya ay leedahay maanta la jooga waay balse mucaaradka ayaa si aan gambasho lahayn gaar ahaan madaxweyne Shariif waxa uu ugu jawaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana uu yiri arrimaha shisheeye laga hadlay shisheeye cid u shaqeey jirta waa la wada yaqaanaa waana joogaan warqadan aad aragtaan waa warqad magaca haliyay Soomaaliyeed oo loogu magac daray xero ciidan uu ka bedelay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waliba uu ugu magac daray nin imaaraadka u dhashay oo Muqdisho ku dhintay qarax ka dhacay haddaba waxa la isweydiinayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud cadowga maanta imaaraadka uu yaqaano shalay ma waxay ahaayeen kuwa Soomaaliya dhisayay marka isagu uu rabay laakiin maanta marka ay kala tageen waxay noqdeen cadow haddaba adigu sidee u aragtaa mucaaradka iyo eedeyntan dawladda ay isku eedeynayaan imaaraadka carabta aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb muuqaalka lagsar share garay waayihii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isticmaalaysay erayo badan oo kala duwan oo eedeen ah oo ay mucaaradka u jeedinaysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa la xasuustaa xilligiisii doorashada in kursiga dalalka kala shaqeeyay ay ku jirtay imaaraadka carabta sida dad badan ay sheegaan si la mid ah 3 sano ee ugu horeysay xafiiskiisa waxay ahaayeen maalgeliyaal dawladda waxay ka taageereen ila amni iyaga oo Somaliland Puntland iyo sidoo kale Jubbaland kala shaqeynayay waxa ay rabaan ay dawladda federaalka Soomaaliya taageerayeen oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu la ahaa saaxiib dhab ah oo u yaqaanay kan ugu wanaagsan ama dalka ugu wanaagsan ee Soomaaliya taageera warqadan aad aragtaan waa warqad magaca looga bedelay xiro ciidan oo loogu magac daray kol hore nin haliyay ah oo ummadda Soomaaliyeed wax badan u qabtay dalkan u soo halgamay laakiin xasan sheekh maxamuud waxa uu qaatay go'aan ah in xirada magaca uu ka bedelo nin imaaraada magaciisa oo halkaas ku dhintay uu bixiyo waxaana ay ahayd 2 bishii December ee sanadkii 2024 xilligaasi oo ay aad isku aaminsanaayeen dawladda xukunka joogta iyo sidoo kale imaaraadka carabta ninkaas waxa lagu magacaabaa Colonel Mohammed Mubarak Al-Mansouri xeradii General Gordon loo yaqaanay waxa loo bixiyay xerada Al-Mansouri heerka ay gaarsiisan tahay ama heerka ay gaarsiisneed cilaaqaadkii u dhaxeeyay xasan sheekh maxamuud imaaraadka carabta waxaana magaca laga bedelay General Gordon inkastoo markii dambe khilaaf culus uu soo kala dhaxgalay dawladda Soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo magacii dib loo soo celiyay General Gordon haddaba iyadoo sidaas ay tahay halyeegii Soomaaliyeed ee xeradan loogu magac daray xasan sheekh maxamuud uu ku bedelay nin imaaraada oo Muqdisho ku dhintay wixii hadal ahaa ee aad daawateen hordhacana uu ku leeyahay dawladda imaaraadka carabta cadow kuma aan Soomaaliya oo weligeed ayay saaxiib la ahayd maanta waxa bedelay iyada ayaa Soomaaliya waxay u diidan tahay nabad la iskuma diidano in imaaraadka carabta uu ka shaqeeyo waxaan u wanaagsanin ummadda Soomaaliyeed waxa uu garab siiyaa Somaliland waxa uu garab siiyaa Puntland waxa uu garab siiyaa Jubbaland iyaguna waxay diidan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya xitaa mararka kooxaha hubeysan in ay garab siiso ayaa lagu eedeeyay imaaraadka carabta oo dad badan ayaa sidaas aaminsan oo ila amni ah haddana iyadoo intaas uu og yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu 3 sano ugu horeeyay xafiiskiisa imaaraadka carabta waxa uu kala shaqeynayay wax walba oo ay u baahan yihiin waliba ammaanka magaalada Muqdisho ciidamada gacanta ku hayay mushaarkooda iyaga bixinayay hubkooda iyo sanadooda military ayaa bixinayay laakiin maanta waxay u adeegayaan mucaaradka waa dal shisheeye oo Soomaaliya burburinaya waa dal cadow ku ah Soomaaliya
hadallada ay isticmaalaan ragga wasiirada ah waxaa ka mid hadalkan ad aragtaan waa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya waxa uu leeyahay RSF ta garabka Soomaaliya macnaha uu kala jeedo waxay tahay RSF ta waxa la yiraahdaa koox ka dagaalanta Suudaan oo Imaaraadka Carabta uu taageero laakiin waxa uu leeyahay mucaaradka Soomaaliya waa garabka RSF ta Suudaan ee Soomaaliya ee Imaaraadka uu taageero laakiin intii hadal aad maqlayseen iyo hordhacan ku gudbiyay waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo xilka haya inuu sidaas u lahaa oo bulshada Soomaaliyeed la wadaagayay in Imaaraadka Carabta uu yahay saaxiibka ugu wanaagsan cidna kama qarsana in Xasan Sheekh Maxamuud xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyay Imaaraadka Carabta mar walba oo muddo dhamaanayna mushkiladaha noocan iyo eedeynta dawladaha shisheeye waxa loo jeediyaa mucaaradka xilligii farmaajo mucaaradka waliba si gaar ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa loogu eedeynayay in dhaqaale uu ka soo qaatay Imaaraadka Carabta dalka uu ku burburinayo dawladnimada Soomaaliya uu kaga soo horjeedo shisheeye u shaqeynayay waxaana ay ahayd wax cad in Imaaraadka uu garab weyn u ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ay ka tarjumaysaa marka uu xafiiska yimid sida uu la macaamilay sida uu dalka ugu soo dhaweeyay sida uu ugu furfuray xafiisyada dawladda iyo sida ay u garab istaagayeen ciidanka amniga caasimada xaqiijinaya oo mushaarkooda ay bixinayeen laakiin Xasan way isfahmi waayeen markay ay kala tageen maanta saaxiibadiisa ragga la shaqaysta isaguba waxay taagan yihiin Imaaraadka Carabta iyo dalal shisheeye ayaa mucaaradka soo siinaya iyadoo bulshada Soomaaliyeed laga dhaadhicinayo in dhaqaale uu mucaaradku soo siiyay Imaaraadka Carabta lagu burburinayo magaalada Muqdisho maxay isdhaamaan dhaqaalihii Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud uu kula dagaalamay farmaajo ee Imaaraadka laga keenay dalal shisheeye lagu eedeynayay iyo tan maanta isagu uu ku eedeynayo mucaaradka ee isla Imaaraadkii ay taagan tahay maxaa farqi u dhaxeeya maxay ku kala duwan yihiin Mati Xasan Sheekh Maxamuud waxay ahayd mid xalaal ah oo Imaaraadka lacagtiisa xalaal ay ahayd markaasi tan maanta lagu eedeynayo mucaaradka samaxaranba dad badan ayaa ku jahwareersan bulshada markaad eegtana badanaa waxay aaminsan yihiin in hadda Imaaraadka Carabta ay mucaaradku lacag siinayaan oo ay rabaan dalka inay burburiyaan waana fikir ay gadayaan saaxiibo siyaasadeed oo u dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isku soo wada duub Xasan saaxiibkii shalay waxa uu yaqaanaa cadowga maanta mucaaradkuna waxay garab ka helayaan qofka ay arkaan in dal madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa si aan gambasho lahayn ugu jawaabay eedaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo saaxiibadiisa ay gadayaan ee ah in Imaaraadku ay dhaqaale soo siiyeen mucaaradka isagoo aan gambana ayuu madaxweyne Shariif waxa uu yiri ninka shisheeye la shaqeeya ee u adeegi jiray waa la yaqaanaa taas oo kala jeedo in shalay Imaaraadku garab weyn u ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la aaminsan yahay in kursigu ay geeyeen la aaminsan yahay 3 sano iyo bar in ku dhow oo xafiiska uu joogo uu la shaqeynayay isagu afkiisana uu ka qiranayo in Imaaraadku yahay dalka ugu wanaagsan ee saaxiib la ah ummadda Soomaaliyeed isla markaana garab istaag u noqday waxaana uu bulshada si cad oo aan gabasho lahayn ugu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud isagoo waliba madaxweyne ah in Imaaraadka uusan ahayn cadow cidii nagu dirtaa ee Imaaraadkii Soomaaliya ka dhex shaqeysana ay tahay qof cadow ah oo Soomaaliya horumarkeeda diidan waa sida uu ku sheegay khudbad hordhac muuqaalka aad ku daawateen isku soo wada duub Xasan Sheekh Maxamuud iyo saaxiibadiisa waxa ay saaxiibkii shalay garab taagnaa u yaqaanaan cadowga maanta waxaana ay aaminsan yihiin in halis ay ku yihiin guud ahaan ummadda Soomaaliyeed laakiin sida ay wax u dhigayaan uma ahan oo mucaaradku iyaga laftirkooda waxa eedan u jeedinayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma ogi Cabdicasiis oo meesha ay sal ku leedahay prime ministerka awoodiisii inaan adiga xayuubsaday ma prime ministerka saas yiri ma ogi ma meel kale laga yiri ma ogi ma dad anaga prime ministerka qoorta inaan isku galna rabay ay yiri sidii mararka badan prime ministerka anaga muxuu ahaay mana dirirsanin awoodna isku ma haysan awoodiisana ma haysto awoodiisana dastuurkay ku qeexan tahay taydana dastuurkay ku qeexan tahay prioritieskii aniga maalintii aan imiday aan sheegay oo ugu horeeyay waxaa ka mid ah dalka shabaab in lagu xoreeyo muxuu ahaay faamiinka ama muxuu ahaay in laga hortago oo la hor istaago iyo deynta dalka in sidii loo cagfilayo 3 qadiyadood oo waaweyn oo national ah ayaan focus gareeyay special envoy u magacaabo inta waxay xukuumaddan ay hawsheedii routinekeed waliba intaasi barnaamijyadaas oo dhan badana advocacy iyo maxaan ku raay tohoga tusaaleyn iyo odaytinimo u baahnayeen laakiin wasaaradda gaashaandhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda maaliyadda maxaan ku raaday iyo hay'adaheeda iyo bangiga dhexe iyo kulli
gaashaandhigga iyo ciidankuna waxay wadeen arrimihii la dagaalanka argagixisada wasaaradda amniga wasaaradihii oo xukuumadda oo prime ministerku uu madaxda ka yahay ayaa waday dagaalka laakiin annaga leadership position iyo policy position aan ka tagna xafiiskayga dad advisories ay joogaan policy advice ay bixiyaan guidelines ay bixiyaan talay bixiyaan laakiin dhaqangelinta talooyinkaas oo dhan xukuumadda iskale wayna wadeen waa qodob wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe wasaaradaha maaliyadda ee dowlad goboleedyadu barnaamijka deyn cafinta agtooda laga wadaa ayagaa wadaan oo wasiirka maaliyadda ayaa hormuud ka ah haddana ku maqan shir rabaad ka dhacaya shalayna ka yimid mid kale oo Washington DC ka dhacayay oo dhammaan arrimaha deyn cafinta looga hadlayay marka qodobka ah ra'iisul wasaaraha awoodiisa maroorsatay waxaan leeyahay dib u eegis ha lagu sameeyo meesha ay salka ku haydo qodobka kale imaaraadka carabta jamhuuriyadda imaaraadka carabta dal aan saaxiibanahay waay shalay maanaan saaxiibin taariikh fac ka faca ayaan saaxiib ahayn dadka aniga ila jiilka ah maxaan ku irahdaye ceel jaallayaashii marka agtiisa ahay iskuulka marka la xira tegi jiray waxaan xasuusanaa dhalinyaro imaaraati ah oo sheekh zaa'id bin suldaan allah u naxariistee oo soo diray oo ceel jaalle nala joogtay iyo waxaan xasuustaa madaxweyne maxamed siyaad barre iyo sheekh zaa'id oo isla socda oo noogu yimiday ceel jaalle oo nala jooga oo muddo dhan nala joogay oo howlaha ceel jaalle lagu hay arkay waa toddobaatameyadii markaan ka hadlayo toddobaatameyadii waxa waaye 50 sano ka hor waay oo dhalinyaro yaryar aan ahayn maalintaas 70kiina waa markay imaaraadka xorriyadda qaateen oo dawlad noqdeen maalintaas cilaaqaadkeena bilaan dayaaradaheenii Soomaali Airlines dalkan la jirta qaar kamida ayaga dawladda Soomaaliya annaguna sidoo kale ciidamada wax badan ka shaqeeyay maalintaas laga soo bilaabay ilaa maanta dawladda imaaraadka carabta iyo dawladda Soomaaliya saaxiib bay ahaayeen heshiisyada ab iyo down madaxdu waa kala waxaysaa shalay muxuu ahay Mareykanka oo Trump joogay iyo maanta oo Biden joogay isku mid ma aha madaxda hoggaanka mar walba influence-giisa iyo aragtidiisa uu leeyahay weligeen cadaawadna dhaxmarta ma jirto maanta aan joogno marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dawladda imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taaganahay la dagaalanka argagixisada waay kabka aynu ciidanka alla amaanaya maanta oo dhan ee magaalada Muqdisho jooga ayadaa noo dhistay noona qalabaysay qalabka baabuurta ay wataan gaadiidka ay wataan hubka ay wataan dawladda imaaraadka carabtaana siisay wax shuruudoo ku xirnay iyo waxaan uga bedelanay oo inaga qaateen ama ay naga sugayaanna ma jirto waxaan rabaa marka dadka cadowga Soomaaliya ah waay dadka ka shaqeeya Soomaaliya iyo saaxiibada inay isqabadsiiyaan oo ay u kala xumo sheegaan war annaga warkaynu waa cadda ciidan la dirsanaa mala cid kasta saaxiibaan lana waxaan rabaa dadka Soomaaliya inaan u sheego dawladda imaaraadka carabta saaxiibada ugu waaweyn oo Soomaaliya ay leedahay maanta la jooga waay berri ninkii kale hoggaan oo yimaad iyo aragtida ka qaatay iyo haddii hoggaankooda ayagu isbedel waa hawl kale oo maqan laakiin maanta saaxiibada waaweyn oo aan leenahay oo dagaalka nagula jira oo na kaalmeeya ayay kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay marka annaga imaaraadka carabta xaalkeenu waa saas cumlada shilinka Soomaaliga muddo maqnaay wax si sahlan aan hadda halkan uga sharaxi kara maaha dal in uu lacag yeesho currency yeesho waxay u baahan tahay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa mas'uul ka ah dalka inuu currency yeesho currency reform wax la yiraahdo mashruuc la yiraahdo bangiga hor jooga ayaa jirta aniga markaan 2017 dalka ka tagay waxaan ka tagay ayadoo naqshadii lacagta la isku raacay wixii la isku raacay oo aan weynay lacagtii aan ku soo daabacan lahayn dhaqaalihii aan ku soo daabacan lahayn dhaqaalo lagu soo daabacay u baahan tahay lacagtu dhaqaalo lagu dhaqan geliyo u baahan tahay dhaqaalo oo ama dahab ama hard currency oo meel yaallo oo lacagta qiimaheeda meel fiican ku haya u baahan tahay intaasoo dhan ka sii hor waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed ay u baahan tahay dalka lacagtaana inay lacag legitimate ah oo dalku uu leeyahay oo meel kastana ka dhaqan galaysa warqadu ilan warqad wax ka duwan ma aha waa warqad oo haday qoydo iyo haday jeexantay baabeys qofka Soomaaligaana hantidiisii oo dhammaan lagu bada
وإني مركز شرعية هاي ستات دولة نمو شرعية الدولة نمو هاي ستات وإني هشيس لقيا هشيس سياسة ذا كوكا كبعدها وحاسونا لو تجيها ما أنت مركز وحي مرة يسمى هدنا سيديو كلا قبن قابسن محوها هاي صوركي لعقته لهيو dhismayaashii bangiga dhexe ee dawlad goboleedyada xataa qaarkoodna la dhisay qaarkoodna ismoodi u socdo heshiiskeedii siyaasadeed ee dhaqaalahana waxa hadda laga hadlayo ee madaladan iyo waxaan loo fadhiyo ka mid yahay marka waa ku dadaaleynaa Cabdicasiis waana u taaganahay teeramkayga intuusan dhamaan dalka inuu lacag shilin Soomaali ay yeesho haddii alla yiraahdo insha Allah